khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale waji cusub yeeshay xilli fariimahan jawaada ah hawada isku marinayaan maamulka Puntland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. muuqaalkan ayaa idinkugu soo gudbin doona fariimahaas cid isku gudbinaysa iyo sidoo kale sababihii ka dambeeyay ee daawasho wacan. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhagan balaalka furasay ku soo gaaray muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo soo gaaray asxaab badan waad ku maadsantahay daawashadaada. wasiirka warfaafinta Puntland ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday madax ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeeyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi xilli wasiirka uu toddobaadkii hore uu hortagay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya halkaasina uu ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taawanaysa isagoona weerar afka ku qaaday maamulka Puntland kuna eedeeyay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ay ka baxaan diyaarado ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda Suudaan kaasoo ay qayb ka yihiin Imaaraadka. arintaasi kadib wasiirka warfaafinta ee Puntland waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayay arimahaasi waxa uuna eedeyn badan u jeediyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka dhawaajiyay in Boosaaso ay ka baxaan diyaarado ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda dalka Suudaan. waxaana ku eedeeyay in uusan u qalmin Axmed Macalin Fiqi inuu noqdo wasiirka gaashaandhigga. waxa uu sidoo kale eedeymo kala duwan u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu ku tilmaamay madaxda ugu sarreysay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay qayb ka yihiin waxyaabo uu ku sheegay in ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. arimahaasina waxay dhalin karaan in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale maamulka Puntland uu mar kale uu cirka isku sii shareerayo iyadoo aynu ognahay in hore khilaaf hoosaad uga dhexeeyay maamulka Puntland sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. markana xiisada ayaa sii hurinaysa kadib markii Axmed Macalin Fiqi uu hadallo qarsoona uu banaanka u soo dhigay taasina ay ka xumaadeen maamulka Puntland. hadalka ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee Puntland ayaa waxa uu jawaab u yahay hadalkii dhawaan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. hal mar aan isla daawano khudbadiisa iyo waxyaabaha uu kaga hadlayo. Armaan xoogaa ka niraahno dacaayado bariyahan maartay dad fara ku tirisa oo mabaadi khaldan iyo subcad xumayn wada ay ka shaqeynayeen oo garabsanaya xogag shisheeye oo dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba dibindaabyo la doonaya. guud ahaan marka hore waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland dibadda iyo gudaba dacaayadaha beenta ah siday uga falceliyeen iyo siday uga jawaabeen ee ay rumaysan yihiin in waxaasi been abuur cadawtinimo ku dhisan inuu yahay oo ay iska kaashadeen kooxaha xagjirka ee argagixisada caalamiga ah oo kuwa gudaha ka dagaalamaya iyo kuwa banaanka jooga oo taageerayaashooda ah. haddaynu ka soo bilowno markaa usbuucan intiis u dambeysay waxaynu maqlaynay usbuucan nin la yiraahdo Cabdisaciid Muuse oo hore u noqday la taliye amniga dowladda farmaajo marna u noqday chief cabinet marna wasiirka arrimaha dibadda u noqday ka qayb qaatay rabshad ka dhacday magaalada Gaalkacyo oo dad ku dhaawacmeen khasaare kale oo fara badan oo ka dhacay. waxaan maqlaynay toddobaadkan telefishinka inuu soo fadhiistay oo leeyahay dekada Boosaaso ka hadlayo. waxaan hore u daawanay muuqaal uu leeyahay waraysi laga weydiinayo al-shabaab baxay yihiin oo uu leeyahay maartay al-shabaab waa cid kaliya ee iska celin karta Abiy Ahmed oo hubaysan oo organized ah sida dowladda federaalka. dowladda federaalku haddii iska celin kari weyday Ethiopiana in iyaga lagu fasaxo wadada loo baneeyo. su'aal mal wariyuhu uu hore u weydiiyay Nicolas Roble oo BBC-da madaxdeeda qaybta afka Soomaaliga waxa uu yiri al-shabaab ma rumaysan tahay inay argagixiso tahay. madaxa ayuu ka ruuxay oo macnaheedu yahay maya. jawaabta uu bixiyana waxay ahayd maxay macno sameynaysaa maartay haddaan ku sheego argagixiso waa ururka kaliya ee habaysan ee nidaamsan ee Ethiopia iska celin kara ma loo baneeyo Ethiopia iska celiyeen. Cabdisaciid dekada Boosaaso oo aynu ognahay qiimaha ay ummadda Soomaaliyeed ugu fadhido xilligii qarankii Soomaaliyeed dumay waxay ahayd dekada kaliya ee Soomaali u furan iyadoo berbere wax ka soo degin Kismaayina wax ka soo degin degada Xamarna wax ka soo degin meesha kaliya
inta af Soomaaliga lagaga hadlo wax uga soo degaan ee loo siman yahay dekada Boosaaso ahayd oo badeecada ka soo degtaa ay gaadho inta af Soomaaliga lagaga hadlo dekada Boosaaso abaal iyo magaalada Boosaaso oo maartay magaceedu ahaa Boosaaso deeqa dekadeeda abaal bay ummadda Soomaaliyeed ku leedahay afartii sanadood ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdilaahi hogaaminaya Allah naxariisto kharashka ay ku shaqeynaysay dawladdaasi ciidan iyo maartay taakulo iyo hub mid walba waxay ahayd cashuurta dekada Boosaaso ka soo baxda ayaa dawladda lagu dhisay ciidankii maartay calanka villa Soomaaliya dib uga taagay calankii Soomaaliyeed markii koowaad ilaa 1991kii يعني dekada Boosaaso ayaa laga biilayay baarlamaankeeda laga biilayay dawladnimada Soomaaliyeed dekada Boosaaso ayaa soo celisay oo saldhig u ahayd maanta Cabdi Saciid inuu yiraahdo dekada Boosaaso hub baa laga soo dejiyay hubkii laga soo dejiyay baa lagu sumoobayo raashinka ka soo degay Boosaaso yaan la iibsanin baa hadalkiisu u dhacay oo dadka Soomaaliyeed iska daaya baa hadalkiisu u dhacay runtii waa nasiib darro laakiin waxaan u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed sidii uga jawaabeen been abuurkaas maartay qadafka weyna oo wax aan jirin ah ka sheegay maayo oo kaliya afkayga barnaamijkan waxaan ku dari doonaa waraysigii isagu bixiyay oo al-shabaab ku taageerayay iyo kii uu dekada Boosaaso maartay kaga faafinayay been abuurka qofka muslimka ah maartay waxa laga rabaa markuu soo gaaro markuu soo gaaro uu filayo aan hubin inuu iska hubiyo waxaana farayaa quraankeena kariimka ayna faraya inaynu warka iska hubino oo waliba dadka aan lagu kalsoonaan karin oo faasiqiinta lagu tilmaamay warkooda in si fiican la isaga hubiyo ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladheena aamanu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin waroy haduu idin yimaado dadka maartay haduu idin yimaado mid aan lagu kalsoonaan karin faasiqa haduu idin yimaado dadka maanta wararka been abuurka fiirinaya haduu waa faasiqin weeyaan haduu idin yimaado war iska hubiya waxa laga yaabaa idinkoon hubsanin oo arinta xugmo ka ah inaad qoom dhibaataysan kadibna markaad runta ogaataan aad ka shalaydaan waxaad sameeyeen aad ka shalaydaan war la iska hubiyo maanta in la iska hubiyo wararka ay sheegayaan maartay ninka yiraahdo Cabdi Saciid Muuse in la iska hubiyo warka uu sheegay Cali Wajiis in la iska hubiyo warka uu sheegayo muxuu ahaayay fiqi in la iska hubiyo warka uu sheegayo muxuu ahaayay Cabdi Xirsi wararkaas oo in la iska hubiyo oo dekada Boosaaso iyo garoonka Boosaaso ku tilmaamaya maartay wax aanay istaahilin ku tilmaamaya sidoo kale wadaad ninka ahaan jiray bariga hore waan filayaa in inxiraafay maartay oo diintiisii uu ku iibsaday lacag ku iibsaday oo u fadwooda kuwa dulmiga sameeya fadwada u fadwooda oo waad saxantii ku yiraahda wuxuu hore u yiri interview bixiyay waraysi u bixiyay wuxuu hore u yiri Puntland iyo Jubaland waa falaago madaxdooda waa lagu duuli karaa waa la soo qaban karaa madaxdooda hore wuxuu yiri ciidamada ajnabiga dalka jooga waa in loo fasaxaa dadka Soomaaliyeed inay laayaan ilaa ay ka ogolaanayaan xukunka dawladda federaalka ah wuxuu hore sidoo kale faasid ugu tilmaamay nidaamka federalismka ah waa nin u doodaya in xamar wax walba la isugu keeno oo dawladda dulmiga sameynaysa dadkii Soomaaliyeed boobaysa ee laynaysa inay maartay wax walba ay gacanteeda galaan wuxuu hore u yiri madaxda Puntland iyo Jubaland waa lagu duuli karaa waa la soo qaban karaa waa la xiri karaa shariicada u banaynaysa xasha sheekh inuu ku duulo oo laayo dadkeeda oo wuxuu hore u banaystay dhiiga dadka Soomaaliyeed oo reer Puntland iyo reer Jubaland ka mid yihiin wadaad kuma tilmaami karo markaas culimada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay iska fogeeyaan oo aanay majlis la fadhiisanin ninka qabyaaladu inda tirtay ee dulmiga ka shaqeynaya maartay isagoon wax wara oo hayaa jirin oranaya garoonka Boosaaso ayaa diyaarada ka duula waxay soo duqeeyaan Suudaan waa dad Carbeed waa dad muslina waa dad muxuu ahaayay ahlu sunna ah ilaahay dhibta maanta haysa ka dulqaado waa ka xunahay dhibaatada gaadhay laakiin dadka shacabka reer Puntland dhulkooda iyo garoonka Boosaaso midna lagama duulo mana jirto sabab
ay imaaraadku hadiiba maartay ay Suudaan ay wax ka fulinayaan sabab ay ugu baahdaan garoonka Boosaaso ma yaalo waxay joogan Chad bay joogan Liibiya joogan Yemen bay joogan intaas oo inooga sii dhow inagoo xuduudo badan inaga xigaan sabab ma jirto ay baahi ugu qabi karaan mana jirto baahi ay u qabaan mana jirto duulaan lagaga qaado iyo diyaarada intay ka kacaan garoonka Boosaaso Suudaan soo duqeeya ma jiraan fiqi baynu maqlaynay oo isaguna muxuu ahaa intuu aqalka sare hortigay leh Boosaaso diyaaradaha ka kaca ayaa Suudaan soo duqeeya fiqi shaqadii loo dirsaday wuu ilaaway hore waxaynu ogeyn inuu Cali Xoosh isagoo la dardaarmay ku yiri Puntland taabashay ka rabtaa Puntland inay rabshad ka abuurtay ka rabtaa Puntland inay dagaal ka ritay ka rabtaa hore saasi uu yiri waxa laga rabay fiqi ciidamadii Soomaaliyeed oo madaxda u ahaa wasiirkooda ahaa oo maalin walba furimaha al-shabaab hubka kaga furanayaan oo ay ku soo koobeen labada irdood xamar oo ay ka gaxeeyeen aadan yabaal ka gaxeeyeen oo ay ka gaxeeyeen muxuu ahaa gobolka Shabeelle dhexe badankiisii oo ay hiiraan ka soo saareen waxaan ka ahayn Jalalaqsi iyo Beledweyne waxay ahayn ay ka soo saareen waxa inuu tuuto gashan yahay oo furinta jiro oo dagaalka sidii al-shabaab looga guuleysan lahaa la isaga difaaci lahaa inuu ka shaqeeyay ahayd inuu tiktoker noqdo inuu ku mashquulo siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo inuu ku mashquulo maalin walba xaflad taagnaado oo Puntland kula dagaalamayo iyo Jubaland waxa weeyaan ma istaahilo inuu wasiir gaashaandhin noqdo inuu jaga xil Soomaaliyeed hayo ma istaahilo markuu Puntland ceebeynayo oo aan waxaanay jirin ka sheegayo dacaadeynayo waxaan filayaa wuxuu garan waayay ceebtu inay ku soo noqonayso dawladda federaalka Soomaaliyeed oo iyadu hawada dalka maamusha ceebtu inay iyada saaran tahay haday arintaasi dhici lahaydba kaasi ahaatee nasiib wanaag arin aan dhicin oo been abuura oo tala faasiq ah ayuu weeye waxa uu ka sheekeynaya hadii aynu eegno sidoo kale yay xiganayaan wararka yaa laga xiganaya wararka waxa laga yeelanaya wargeys xaq jir ah oo la yiraahdo Middle East Eye ikhwan muslimiin baa iskale waxa iskale maartay oo taageero dawladda Qatar baa taageerta wariyaashii Al Jazeera ka shaqeynayay weeye kuwa lagu aasaasay waxa qayb ka ah nin muxuu ahaa Turkiya oo maartay isagoo tuutaha ciidanka xiran Suudaan furinta lagu arkay oo aan qabanin shaqo ah maartay in Puntland la dacaaday mooyee wax kale aan qabanin oo aragtida maartay xaq jirka iyo Daacish fidiya dagaalkan oo dhan wuxuu bilaabmay bar allaaleey markii Puntland ay la dagaalantay maartay nimanka leeyahay Daacish ay dagaalka maartay buraac miskaad ku qaaday dacaayadana aad bilaabatay waxaana dadkaas oo dhan ka xun yihiin Middle East Eye dadka ka shaqeeya argagixisada caalamiga dibadda ku nool kuwa gudaha joogo ay taageerayaan fiqi oo hore argagixisa u ahaa intii aanu ku biirin dawladnimada Soomaaliyeed intaanu ku biirin isagoo godane la sawiran isaga yaqroobo ayaa sawirkooda la hayaa waxaan muuqaalkan aan ku soo dari doonaa nin shalay argagixisa ahaa inuu maalinta ka sheekeeyo argagixisa ka sheekeeyo muxuu ahaayay inuu waliba uu la dagaalami waayay waxay cadeynaysaa wali inuu argagixisadii ka tirsan yahay waxay cadeynaysaa al-shabaab Daacish inaan laga adkaan inuu ka shaqeynayo waxaas oo cadho ah oo maalin walba mikrofoonka la taagan yahay cadhadaas inay ka dhalatay inuu doonayo inaan Daacish Puntland ka adkaanin kuwa kale banaanka joogo ninka Turkiga iyo Middle East Eye inta wax ku qorta iyo waxaas oo dhan waxa laga xun yahay Sheekh Cali Wajiis iyo waxa laga xun yahay in Puntland ay ka adkaato argagixisada caalamiga ee Daacish arintu halkaas ka socota dadka Soomaaliyeed wax kale ma jiraan waad ogtihiin Puntland horumarka ka socda maartay buuraha calmiskaad in wadooyin laga dhexridayo dadku gaadiidka iyo dadku iyo sahaydu iyo maartay ay si u maraan amaana u maraan meel walba in horumar ka socdo Puntland dawladnimo iyo amaan iyo kala dambeyn in ay ka socdo dekado iyo airport iyo laamiyo iyo buundooyin iyo iskuulo iyo cisbitaallo iyo horumar aan Soomaali inteeda ka jirin inuu ka jiro dadka reer Puntland waxaan rabaa inay ku baraarugaan dabada iyo guduba kooxda argagixisada ee xamar joogta ee villa wardhigle ku jirta oo Cali Wajiis uu yahay muftiga u yahay oo fiqi wasiirka u yahay oo roobow oo shalay dadka Soomaaliyeed bireynayay wasiirka cadaaladda u yahay oo al-cadaala wasiir ku xigeenka warfaafinta u yahay oo dhamaantood ay yihiin argagixiso la hubo oo caalamka ka diiwaan gashan inaad ka digtoonaataan aragtiyaha faasidka ah iyo beenta ay faafinayaan in si mugle looga jawaabo oo waa beentiin la yiraahdo
oo dadka Soomaaliyeed iyo caalamka la tuso nimankaasi inay argagixisada caalamiga ah ay taageerayaan oo waxaas oo dhan u sameynayaan maqaalka ugu dambeeyo ay xigtaan oo yiraahdaan Middle East ay baa lagu qoray waxa qoray inaan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Bashiir Maxamed Caata la yiraahdaa Bashiir Maxamed Caato Boosaaso ma iman Puntland ma iman adduunkuna warku ku tirakuteen kuma shaqeeyo warku yaa laga soo xigtay xog rasmi ma la hayaa itus oo taabsi baa lagu shaqeeyaa laguma shaqeeyo muxuu ahaayay warar ku tirakuteena oo kuwa tuuga ah oo Daacish taageera ay maartay isku soo abaabuleen dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay ha ka dulqaado dawladdan faasidka ah oo xamar labadeeda iridood iyo boobka hantida ummadda Soomaaliyeed oo kaliya maartay ku soo ururtay muddaxileedkeediina 4 bilood oo kaliya uga hadhay ciidankii Soomaaliyeed hadda diiwaan gashan waxa la yiraahdaa 77,000 baa diiwaan gareyshan oo mushahar qaata waxay ka adkaan laayihiin al-shabaab oo dhul banaan oo aan buur lahayn oo togal lahayn oo siman ku dagaalamaysa baa xamar labadeeda irdood isugu keentay iyadoo ay wehelinayaan 22,000 oo ajnabiya oo si fiican qalab culus iyo mid fududba ku hubaysan waxa laga xun yahay Puntland oo kaligeeda oo ciidan lug oo taageeraya aanu jirin qalab culus oo meel kale uga yimi aanu jirin dhaqaale meel kale uga yimi aanu jirin in dawladnimadeeda iyo ciidankeeda iyo shacabkeedu ay argagixisada caalamiga ah ee Daacish ka adkaadeen oo cirib tareen intaas laga xun yahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad daawatay khudbada wasiirka warfaafinta ee Puntland waxyaabihii kaaga soo baxay aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeenana subscribe inoo dhagan boleelka furaysa uu ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo saar si uu u gaaro asxaab badan halkaana saaxiib ay inagula noqdaan waad ku mahadsantahay daawashadaada